بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا عشر كيني نو سعودي حلشدا لمانها كلا أها قيبتي كوباد family managementيga waxaan isku soo jirnay aan soo qaadanay qaybtii mowduucii koobaad waa maxay qoys iyo qaabkii koobriga xulashada dunida ugu horeysay nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam markii xulashada uu ka hadlayay xagga diinta wuxuu ku saleeyay afarta qaybood markii rasuulka kaleey salaatu ku saleeyay iskama oranin macna weyn ay ku fadhidaa laanahu guurku marka la dooranayo waxa weeye waa choice midka aad sameynaysid kan ugu qiimo badan oo baahan waqti badan iyo fikir badan in aad gelisid in aad dooratid noloshaada qofkii mustaqbalkaaga aad la dhameysan lahayd qofkii inta aad nooshahay naftaada aad ku amaani lahayd qofkii qayb ka noqon lahaa magacaaga iyo mustaqbalkaaga qofkii inta aad nooshahay maamuli lahaa adiga caafimaadkaaga hurdadaada iyo hab fikirkaaga meesha u jeedo therefore waa in la fahmaa in xulashadu ay tahay wax weyn oo loo baahan yahay inay u baahan tahay waqti ee aan lagu degdegin marka xulashada nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay diinta quruxda nasabka iyo maalka waxaan filayaa inaysan nagu cusbayn afartoo macna weyn bay leedahay diinta wad garanaysaa qofkii hadduu diin leeyahay oo ilaahay ka baqayo waxaan aaminsanahay wax weyn noloshiisa in uu haysto oo sharaf ah hadduusan diin lahayna warkeedaba daa quruxdu waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu xusho dumarka oo ay tahay in lagu guursado marka la doonayo waxaan soo sheekeynay in heshiiska guurka u dhex mara rag iyo dumarku ay dalabka inta badan leeyihiin 95% ragga maadaama ay dalabka leeyihiin waxa la siiyay choice-ka ah in iyagu ay doorashada sameeyaan intooda badan maadaama ay iyagu mas'uul guriga ka noqonayaan guriga qofka mas'uul ka noqonayana qofka guriga uu la tagayo inta badan asaga ayaa choice-ka la siiyaa gabadhu marka iyada aqbali karta ama diidi karta heshiiskaas loo soo jeediyo marka waxa lagu doorto waxa kamid ah quruxda waxa kamid ah nasabka oo nasabka markaan u jeedno ilaahay dadkiisu wuu samay laakiin haddana waalidka iyo dadka dhalay in ay dad wanaagsan yihiin ayaa muhiim ah sidoo kale maalka ayaa kamid ah oo haday gabadhu xoolo leedahay oo ay xoolo haysato qofku uu xelan karaa ama uu guursan karaa haddaba afartaa shay rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu door biday oo noo ishaaray qodobka diinta oo leeyahay qofka diinta haduu leeyahay inta kale oo dhanba taasa ka wanaagsan ee taa hal doorto aad iyo aad muhiim u tahay in la tixgeliyo oo la qaato tala rasuulka kaleey salaatu wasalaam waaye haddaba muhiimadda maareynta xulashadu maxay macnaahu anaga noogu fadhidaa haddaan nahay dad Soomaaliyeed maxaan ka inari ama dhaqankeena ama odayaasheenii horeeto maxay ka aaminsanaayeen guurka runtii anaga luqadda Soomaaliga ku hadlayna waa luqad qani ah waa luqad barwaaqaysan waa luqad u baahan dad qof walba oo Soomaali uu fahmo in luqadiisa hooyo ay tahay luqad qani ku ah af Soomaaliga hidaha dhaqanka iyo dhammaan fasiraada erayada loo baahan yahay markay ka hadlayeen xulashada iyo guurka dadkeenii hore si ballaaran oo muhiim ah ayay uga hadleen waxay leeyihiin xikmooyin qiimo badan oo ay tahay in aan adiga iyo aniguba u wadaagno waxa kamid ah xikmadihii laga bartay dadkeenii hore inay oran jireen hal hay soo ahaan jiray qofka marka guurka uu ka wanaagsanaado ama uu ka xumaado gabar baa xumaatay lama oran jirin iyagoo afkooda ka ilaalinaya inantii magaceedii ama qoyskii ayaa waxa la oran jiray hebel guurkii uu u hagaagay ama guurkii uu ka xumaaday lama oran jirin gabadhii baa ka xumaatay ama gabadhii baa u hagaagtay gabadh wanaagsan buu qabaa waa sharaf bay ahayd laakiin inta badan hebel guurkii marka rabo in guurku ka xumaado la yiraahdo gabadhii way ka xumaatay la doonay waxa la oran jiray guurkii baa ka xumaaday gabar lama soo hadal qaadi jirin because xaal baa ka dhalan jiray marka guur baa laga hadli jiray inuu hagaagay ama xumaaday ee gabar lama soo qaadi jirin taasoo ku tusaysa sharaftii iyo qiimihii gabadhu ay ka joogtay dadkii Soomaaliyeed ee inaga nagu horeeyay waxay lahaayeen marka maahiyooyin iyo xikaayado waaweyn oo ay tahay in aan lafteeno inta yara dul istaagno aan ka fikirno waxa kamid ahaa inay oran jireen ubadkaagu habeen buu ka doonayaa inaad u heeliso ubadkaagu mar buu doonayaa
inaad u heliso. Markaasu waa goorma? Waa marka aad dooranayso hooyadii, waa marka aad dooranayso aabbihii. gabadhu marka ay ubadkeeda u helisay waa goorma? waa markay aabbo wanaagsan u doorto. aabbuhu markuu ubadkiisa u heliyey waa goorma? waa marka uu u dooro hooyo wanaagsan. marka ereygaas waa erey aad iyo aad macno qawiya u leh, waa in la fahmaa. in aad waalid il ubadkaaga ka fikirtid inay hooyo wanaagsan helaan ama aabbo fiican helaan, waxay ka mid tahay waxyaabaha xoojiya doorashadaada iyo xulashadaada iyo habkaa u arkaysid mustaqbalkaaga. sidoo kale in qoysku wanaagiisa iyo mustaqbalkiisa la ilaaliyo suu noqon doono waxaad ka garanaysaa xikaayadan kale oo ay lahaayeen oo ahayd nin maalin ma gaartid, ninna sanad ma gaartid, ninna weligaa ma gaartid. nin maalin ma gaartid, ninku hadduu kaa faras fiicnan yahay, habeenkii daajiyo, biyo siiyo, 6 saac u kaco, meel wanaagsanoo cawsa ku xiro, subaxii hadduu kaa hor dhaqaaqo gaari maysid. adigoon xalay neefkii aan hagaajin, biyo siinin, caw siinin, hagaajinin, maxaan ku idhahdaa duurkaa iska wareegaya, haddaad ka daba dhaqaaqdo nin xalay ka hagaajiya faraskiisii, weliga maalintaa gaari maysid, wuu kaa dheereeyaa weye, because neefkiisii buu hagaajiyey, adiguna waa dayacday. ninna sanad ma gaartidoo ninka sanadkaa xoolihiisii u sahmiye meel wanaagsan, barwaaqo dejiyey, biyo fiican siiyey, daaweeyey, bahalkii ka ilaaliyey cunayey oo xoolaha maxaan ku idhahdaa dhiigga ka nuuga ka ilaaliyey, maxaan ku idhahdaa xere wanaagsan u dhigay, maxaan ku idhahdaa bahalkan dadka cuno ama dhurwaaga dayacay ka ilaashaday oon u dayacinin. iyo ninka aan intaa samaynin sanadkaa isma gaarayaan. sababta isku gaarayna maxay tahay? hadday caano iyo maal ahaan lahayd ma gaarayo oo uu ka caano wanaagsan yahayo qoyskiisii subag iyo caanuu haystaa. ninkan kalen xoolaha u sahmin ee aan barwaaqada geynin ee xoolihiisii caaniya subag kama helayo. hadday noqoto inuu iibsado oo suuq geeyana, ninkan barwaaqadii neefkiisa geystay ee ilaashado takarta iyo ka ilaashaday dad bahalka uu u gadmaya oo neefkiisii dhiig buu leeyahay. meesha ninkan kaleeto neef cata hadduu suuq keeno uusan u gadmaynin, marka ma gaari kara sanadkaasoo ninkaasoo reerkiisii waa haray, kana reerkiisii waa ka gudbay abaartii iyo culayskii. ninna sanad ma gaartidoo ninkaas sanadka aad gaari waa kuma? waa ninka kaa xaas wanaagsan. qofka siisaba markuu guriga kaga wanaagsan yahay oo meeshu u hoyanayo ay ka wanaagsan tahay meesha adigu u hoyanaysid, weligaa gaari maysid. waxaad ogtihiin cilmi dadkeena magaalooyinka waaweyn jooga, dhallinyarada markay kaftamayaan, ninkii xaas wanaagsan haystaa iyo ninkii xaas aan wanaagsanayn haystaa, shaqadaa laga gartaa, wax soo saarkiisaa laga gartaa, habka qofka u shaqaynaya laga gartaa. qiimo halkaasaanu ka garanaa, because waxaa weye qofku marka uu gurigu ka wanaagsan yahay ayuu shaqada ka wanaagsanaadaa, markuu gurigu ku wanaagsan yahay ayuu bulshada dhexdeeda ku wanaagsanaadaa, markuu guriga u wanaagsan yahay ayaa muuqaalkiisa iyo bulshada wejigu la imaanaya u hagaaga. laakiin qofku guriga markuu ka guban yahay, wax kale oo uu ku wanaagsanaanaya ma jiro. gurigu marka waa saldhigga laga kontaroolo qof ragga weeye, dumarka ayaa kontaroolay. hadba sida gabadhu ninkeeda ula macaamisho, u daryeesho, u hagaajiso, u quruxsato, u maaragtay u naashnaashto ayuu la imaanayaa dadka kale una soo dhexgelaya. marka waa in la fahmaa xaaska wanaagsan inay fura u tahay guusha dunida, midda aakhiro iyo dhammaan tan bulshada dhexdeeda. marka doorashadu waa muhiim, waa in aadan uga fakarno oo habkaan isu dooranayno maantay aan wax weyn ka bedela loo baahan yahay. haddaba waxaad ogaataa doorashada xaaskaaga iyo odagaagu in ay tahay guusha ama guuldarrada bilowga noloshaada. sideedu markaad guuldarraysanayso ama aad guulaysanayso, barbilow bay leedahay, bardhammaadkana ilaahay subxaana wa tacaala baa og inaad ka bixi doonto iyo in kale. laakiin doorashadaadu iyo bilowga guushaada iyo guuldarrada waxay ku xiran tahay sidaad u doorato xaas wanaagsan ama aabbo wanaagsan. haddaba sababtu maxay tahay? muhiimadaas uu leeyahay qoyska doorashadiisu waa meesha dadka ilaahay ka soo saara waaye, productionka meesha soo saaraysa waaye. because bulshadu markay qoys wanaagsan leedahay oo dad wanaagsan soo koriyeen, bulshadu u imaanaya. haddii qofkaasu qoys xun ka soo baxana oo hab xun loo soo korsho, dhaqan xun lagu soo korsho, nidaam xun lagu soo korsho, qaab daran lagu soo korsho, bulshadu la dhex imaanaya wixii. therefore qofka productionka ah
hal abuurkiisa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala nidaamiya oo ku dhex abuura hooyada laakiin korinta iyo barbaarintu waa saamaynta ugu badan ee qofka noloshiisa taabata taasoo tahay waxa uu bulshada dhexda la imaanayo meesha aan rabno inaan hagaajinona waa halkaas si dadka bulshada soo dhexgelaya ee maanta doorashada samaynaya ee hadda insha allah bulshada soo imaan doona ay u noqdaan dad wanaagsan waxa doorta wax fiicanna mustaqbalka noo soo saara